السلام عليكم أصحاب ميل كستو الدنيا كجوكتان كسو دوادا channel كينا قالك عيارها الدنيا qodobada caawa fiidnimo aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona Kai Havertz oo kooxaha Liverpool, Chalsea, Manchester United u sheegay waxa uu ka doonayo kooxdiisa cusub Arsenal oo kamid ah 5 kooxood oo ka wada dheela Premier League kuwaas oo wada doonaya saxiixa kabtanka PSG ee Thiago Silva Lionel Misse oo laabta u qaboojiyay taageerayaasha kooxda Barcelona Manchester United oo kansashay kulankii ay shalay la ciyaari lahayd Stoke City sababta kulanka oo la baajiyay oo walwal hor leh abuuraysa Chalsea oo guud ahaan iskaga baxday xiisaha Coutinho iyo wargeyska oo ogaaday sababta ay kaga hareen loolankiisa iyo wararka suuqa kala iibsiga ayaad ku maqli doontaan Lionel Misse oo laabta u qaboojiyay taageerayaasha kooxda Barcelona xidiga reer Argentine ee Lionel Misse ayaa laabta u qaboojiyay taageerayaasha kooxda Barcelona kahor kulanka Real Mallorca ay kula ciyaarayaan sabtida horyaalka La Liga maadaama la ogaaday in dib loo ciyaarayo horyaalka sida laga soo xigtay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain Misse ayaa waxa uu ka qayb qaatay tababarka kooxda Barcelona si dabiici ah maalintii labaad oo xiriir ah wararka ayaa waxa ay intaasi ku sii darayaan in Misse uu muuqdo inuu ka soo kabsaday dhaawacii muruqa kaasoo sababay in tababarka kooxda uu ka maqnaado in ka badan hal maalin wargeyska ayaa waxa sidoo kale uu sheegay in Nelson Semedo uu sidoo kale si caadi ah kaga qayb qaatay tababarka guud ee kooxda Barcelona maanta kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawacii uu qabay xidigaas Chalsea oo guud ahaan iskaga baxday xiisaha Coutinho iyo wargeyska oo ogaaday sababta ay kaga hareen loolankiisa mustaqbalka Coutinho ayaa ah mid aanan wali la go'aaminin halka uu ku dambeyn doono kadib xagaagani iyadoo kubad sameeyaha reer Brazil uu ku soo laaban doono Barcelona marka uu soo dhameysto muddo ciyaareedkiisa amaahda ah ee uu ku qaadanayo Bayern Munchen waxay u badan tahay in Barca ay iska iibin doonto Coutinho iyadoo 27 sano jirkani uu rajeynayo kulaabashada horyaalka Premier League hadii uu mar faarujinayo garoonka Camp Nou kooxda reer Spain ayaa iibka Coutinho ku doonaysa lacag dhan 100 milyan oo euro balse waxay taasi sababtay in la heli waayo koox iibkiisa si qeexan u xiiseynaysa naadiga Chalsea oo kamid ah kooxaha lala xiriirinayo laacibkii hore ee Liverpool ayaa si toos ah albaabada kaga xiratay xidigan maadaama ay walaac ka muujinayso mushaarkiisa faraha badan sida ay ku waramayso ESPN sidaasna ay ugu hartay loolanka loogu jiro saxiixa Blues ayaa la filayaa in ay 50 milyan oo euro ay ku qarash garayso saxiixa Timo Werner oo ay horaan heshiis horodhac ah la gaareen si la mid ah lacag ka badan 40 milyan oo euro ayay ku bixiyeen iibka Hakim Ziyech waxay taasi ay saldhig u noqotay cabsida kooxda ka dhisan galbeedka London ay qabto in ay sameyso saxiixa kale oo waaweyn kooxaha Newcastle, Everton iyo Tottenham ayaa kamid ah kooxaha Ingiriiska ah ee lala xiriirinayo Coutinho balse waxaana la filaynin inay awoodaan qiimaha ay Barcelona ku doonayso laacibkeeda Arsenal oo kamid ah 5 kooxood oo ka wada dheela Premier League kuwaas oo wada doonaya saxiixa kabtanka PSG Thiago Silva 5 kooxood oo ka dheela horyaalka Premier League oo ay ku jirto naadiga Arsenal ayaa la soo warinaya in ay wada doonayaan saxiixa daafaca naadiga Paris Saint-Germain Thiago Silva kadib 8 sano oo ku sugnaa garoonka Parc des Princes xidiga Silva ayaa si xor ah lagu heli karaa maadaama uusan qadaraaskiisii cusboonaysiinin kooxda difaacanaysa horyaalka League 1 inkastoo uu 3 bilood kadib uu 36 sano jirsan doono ayaa haddana shabakada 9 Main waxa ay sheegaysaa in kooxo badan oo Ingiriis ah ay xiiseynayso xidiga reer Brazil Arsenal ayaa la sheegayaa in ay kamid tahay liiska kooxaha doonaya iyadoo macalinka Mikel Arteta uu eegayo qaabab lagu horumarinayo xulashooyinka daafaca ee kooxdiisa kadib markii uu ka soo hoos shaqeeyay tababar Carlos Ancelotti kooxda Everton waxaa loo arkaa in ay tahay meel kale oo macquul ah oo uu iman karo daafaca dhexe ee halyeyga ah Wolverhampton Wanderers, Newcastle United, West Ham United ayaa sidoo kale sheegaya in ay kormeerayaan xaaladda daafacan Thiago Silva
Manchester United oo kansashay kulankii shalay ay la ciyaari lahayd naadiga Stoke City sababta kulankan la baajiyay oo walwal hor leh abuuraysa kooxda kubadda cagta Manchester United oo kansashay kulankii saaxiibtinimo ay la ciyaari lahayd naadiga Stoke City kadib markii macalinka naadiga Stoke laga helay caabuqa COVID-19 Manchester United ayaa lagu qasbay in ay baajiso ciyaarta saaxiibtinimo ay kula ciyaari lahaayeen Stoke City garoonkooda tababarka Talaadadii shalay kadib markii tababaraha kooxda Championska ee Major laga helay faafaha coronavirus warbixin ay soo saartay kooxda heerka labaad ayaa lagu yiri Stoke City waxay xaqiijin kartaa in tababaraha Michael O'Neil uu ku dhacay coronavirus kadib baaritaanadii la sameeyay Isniintii June 8 O'Neil lagama helin xanuunka shantii baaritaan ee hore haatan waxa uu gali doonaa karantiil isagoo xiriir dhanka qadka ah la sameyn doona ciyaartooydiisa iyo shaqaalaha tababarka caawiyaha tababaraha ee Bailey McNeely ayaa sii wadi doona tababarka iyadoo Stoke City ay isku diyaarinayso kulanka ay la leedahay Reading 20 bisha June dhinaca kale kooxda uu hogaamiyo macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa soo kabasho degdeg ah u rajeynaysa macalinka Stoke waxaana arintani ay abuuraysaa walwal hor leh oo ku aadan in weli uusan dalka Ingiriiska ku suulin faafaha coronavirus kooxda Manchester United ayaa maadaama ay ka sishay kulankii Stoke haatan waxa ay kulan saaxiibtinimo isbuuca soo socda ku ballansadeen naadiga West Brom garoonka Old Trafford kooxda ka arimisa ayaa kulankeeda ugu horeeya ee dib u soo laabashada horyaalka Premier League waxa ay 19 bishan June la ciyaari doontaa naadiga Tottenham oo wato macalinkii hore ee kooxda Chalsea Jose Mourinho xidiga Kai Havertz oo kooxaha Liverpool, Chalsea iyo Manchester United u sheegay waxa uu ka doonayo kooxdiisa cusub xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz ayaa la sheegayaa in uu diyaar u yahay inuu ku biiro Premier League laakiin doonayo inuu ku biiro koox fursad fiican u haysata ku guuleysi koobab 20 jirka ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah xil ciyaareedkan isagoo oo dhaliyay 11 gool sidoo kalena caawiyay 5 gool waxa uu haatan ka mid yahay xidigaha da'yarka ah ee ugu fiican qaaradda Yurub kooxda Manchester United, Liverpool iyo Chalsea ayaa si weyn loola xiriirinaya waxa ayna haatan dhiirigelin ka helaan hadal ka soo yeeray xidiga laftiisa xilli uu wareysi siinayay wargeyska Marca waxa aan u maleynayaa in aan khibrad fiican ugu filan ka helay Leverkusen ayuu xidigu yiri waxa aan ogahay awoodda kulamada horyaalka Premier League waxa aan ku kalsoonahay in aan ku biiri karo koox walba oo ka baxsan Yurub waqti xaadirkan waxa aan doonayaa in aan xil ciyaareed fiican soo bandhigo kadib waxaan arki doonaa waxa dhaca Havertz oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri kooxda ayaa mar walba muhiimada leh ku guuleysiga koobab ayaana ah muhiimada ayuu yiri xidiga kadib abaalmarinaha shakhsiga ah waxa ay iman doonaan marka aad si fiican u ciyaarto waxa aan doonayaa in aan koobab waaweyn ku guuleysto sidoo kale Champions League ayaana hadalkiisa uu sii raaciyay xidiga Kai Havertz wararka suuqa kala iibsiga aan idinhaynana waxaa ka mid ah Chalsea, Manchester City iyo Tottenham ayaa dhamaantood doonaya daafaca Real Madrid iyo xulka qaranka Morocco ee Ashraf Hakimi oo 20 sano jir waqtigan ama ugu maqan kooxda reer Germany Borussia Dortmund Arsenal waxa ay rajeynaysaa in xiriirka ay la leedahay aabaha dhalay weeraryahankeeda Pierre Aubameyang oo sidoo kalena u ah wakiil inuu ku caawin doono inuu 30 jirkani heshiis cusub u saxiixo kooxda uu kabtanka u yahay wararka kale ee suuqa kala iibsigana waxaa ka mid ah لاعبka qadka dhexe ugu ciyaara PSG Idris Gueye ayaa sheegay in aanu damiciisu ahayn inuu ka tago kooxdaas inkastoo uu 30 jirkani ay u muuqato in albaabada loo furayo si uu u baxo waxaa la xiriirinayaa kooxaha Premier League oo ay ku jiraan Wolves iyo naadigiisii hore ee Everton dhinaca kalena kooxda reer Spain ee Barcelona waxa ay haysataa ilaa iyo 7 July si ay u faa'iideysato qodobka lagu burburinayo heshiiska Inter Milan ay kula jirto weeraryahankeeda reer Argentina ee Lautaro Martinez oo ah 110 milyan uu ku fadhiyo laakiin xilliga wixii ka dambeeya waxa meesha ka bixi doona qodobka xadidaya lacagta lagu iibsan karo xidiga Lautaro Martinez asxaabta anigoo rashka waxaan ilayaa sida iyo nabadgelyo